laga soo bilaabo Raas Kambooni, Shawa, Kudha, Qandal, Kismaayo, Goobaha iyo goobo kale oo aad u tiro badan oo maamulka Jubbaland. sidoo kale Baraawe, Eeltoore, Eelmungo, Lixda Mooro, Ceel Cadow, Sambuusi, Marko, Jilimarko, Gandarshe, Dhanaane, Jasiira oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. Liido, Muqdisho iyo Ceel Cadde oo yana caasimadda Muqdisho. Warsheekh, Cadale, Cige, Ceeldheer, Hobyo oo yana ka tirsan labada maamul ee Galmudug iyo Hirshabelle. May, Xiis, Berbera, Saacadiin, Lughaya iyo Lowyacdo oo ka tirsan maamulka Soomaaliland. Dhinowda, Garacad, Kulub, Dhanaane, Gabba, Ayl, Suuji Garmaal, Bandarbayla, Kulule, Xaafuun, Garduush, Burdiya, Gumbax, Raas Bina, Baargaal, Raas Casayr, Tooxin, Bareeda, Caluula, Sayn, Geesaley, Xaabo, Murcayo, Butiyaalo, Qandala, Yoos, Buruc, Jiitama, Hantaara, Bacaad iyo Buurgaaban, Mareero, Boosaaso, Qow, Ceelaayo iyo Laasqoray oo yana ka tirsan maamulka Puntland. goobaha asra ku soo sheegnay ayaa dhammaanto xeebaha ugu dalxiiska wanaagsan dalkeena qaniga ah iyadoo qof kasta oo Soomaaliyeedna uu ku dabaalan karo meesha uu soo gaaro. xeebta degmada Xaafuun oo aan dhawaan safar shaqo ku tagnay ayaa noqonaysa meelaha ugu soo jiidashada badan guud ahaan xeebaha Soomaaliya. sida aan idhiinaba ku aragtaan Xaafuun waxay u muuqato goob aan laga sii jeesan karin.